kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wasiirada xukuumadda Somaliland hoggaanka xisbiga muxaafidka ah kulmiye marwada koobaad ee Somaliland iyo waliba mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil barasaabka gobolka Togdheer Cabdo Aya iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan oo aaskaasi qaran ka qaybiyay marxuum macallin Qaasim Allah u naxariisto oo lagu aasay xaafadda dariiqada ee magaalada Sheekh macallin Qaasim ayaa caan ku ahaa quraan barista dadka reer Somaliland isagoo gobolada kala duwan ee Somaliland malcamado kala duwan ka sameeyay isla markaana dad badan oo reer Somaliland quraanka baray mudooyinkii uu noolaa macallinku waxa lagu qiyaasay daadiisa ilaa iyo 112 sano iyadoo ay nimadiisii qaarkood oo ka qayb galayay aasku tilmaameen inuu ilaa iyo 112 sano jiray qaatay in uu hormuud ka ahaa oo anigu aan idhaa bas ka soo arkasaas tuuli inamada 20 jirka baan jabhadan frontka la baratmay maxadun sanadii casisho fiisaha iska hayso oday soo had garatay ma marka halkaas ayaa buu mariyay sidii buu ku guuleystay oo ay ku xoroobeen nimanka madaxda ee sanamtana waa wada weydiin kartaan macallin Qaasim ku ka jiro taariikhda nin wallo Somalilandna waa taqaanay marka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca quraanka iyo dhinaca adeega bulshada saddexda arrimood oo midna aanu midka kale ka maarmi karin ayuu marxuumku ku foolana ilaa maalinka oo ku galay aaska macallin Qaasim ayay guud ahaan baa dadka reer Somaliland ee ka qayb galay ay kala yimi gobolada kuwa ka yimi degmada Sheekh iyo waliba kuwa ka tagay gobolka Saaxil ay si weyn uga naxeen isla markaana ay tacsi ugu direen qoyskii iyo qaraabadii iyo waliba qaranka uu ka baxay macallin Qaasim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aaskaasi oo ahaa mid si weyn la isugu soo baxay ayaa halkaasi marxuum macallin Qaasim loogu duceeyay isla markaana lagu tukaday ka hor intii aan la aasin Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka caalamiga Home Cable TV